السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمر كلا سود وهذا أدي يوم مهتنتهين ما أنت وتلاذو وأنا شني لبعتنك بيش سديداد أغسطس سنة كلا بدو كون إيه اللحية لبعتنك مقال كم حربا إن ندو كل وذاقه وزارة أرمها دي بدأ أو شاكتي إن داد ودنك كوي مد في زياشة B1 إيا B2 كدبنا مريكن كإسكدي بي oo 200 oo kun gaaraya fiisayaashaasi laga laabanayo hadaba labadaasi fiisa maxay yihiin ujeedooyinka Mareykanka loogu yimaadana maxay yihiin sidoo kale waan idin la wadaagaya ciidamada ICE howlgallo ay muddo 2 toddobaad ee ugu horeysay bishan ay ka wadeen gobolada Maryland iyo Virginia oo daris la ah caasimadda Washington DC ayaa waxay ku soo qabqabteen in ka badan 1300 oo qof oo ay leeyihiin intooda badan waa dad ama dambi horey loogu helay ama dambiyo ama dacwado lagu soo oogay oo kooxa gaangisana ay ku jiraan arintaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya maalmahan commentiyada dad fara badan group 5 miya dib loo bilaabay ayay soo weydiinayeen bal arintaasina sidoo kalena waan idin la wadaagaya maxaa ilaa iyo madaxweyne Trump markii uu maamulka la wareegay waxaan ognahay in ay waday inay fiisayaasha kala laabato dadka ama dambiga galay ama wadanka intay ujeedo kale ay u yimaadeen markii dambana Mareykanka iska dhiibay waanigii toddobaadkii hore idin sheegay ilaa iyo 175,000 in wasaaradda arrimaha dibadda ay fiisayaal ay kala laabatay hadda maamulka madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay dad gaaraya 200,000 oo qof oo fiisayaasha B1 iyo B2 ku yimid Mareykanka in fiisayaashaasi laga laabanayo kuwaasi oo markii dambe Mareykanka iska dhiibay hadaba labadan fiisa maxay kala yihiin labadan fiisa horta waa fiisayaal muddo kooban loogu talagalay qofku inuu wadanka ku joogo dadka aan soo galootiga ahayn oo non immigrantga ayaana la siiyaa hadda B1 oo kale waxa la siiyaa dadka non immigrantga waa fiisa ku meel gaar ah dadka howlaha ganacsi u imaanaya ayaa la siiyaa waxaana kamid ah dadka shirarka waaweyn u imaanaya dadka sidoo kale inay contractiya company ay la saxiixdaan u imaanaya kuwa sidoo kalena consultationska ama la talin u imaanaya ayaa la siiyaa fiisahaasi fiisaha B2 isagana sidoo kale waa muddo kooban waa temporary waa ku meel gaar waxaana la siiyaa dadka dalxiisayaasha ah kuwa fasaxa ama vacationska u imaanaya kuwa social eventska u imaanaya dhacdooyinka waxa kamid ah qoyskoodii ay soo booqanayaan ama sidoo kale qofkaasi daaweyn caafimaad ayuu u yimid marka dadkaasi marka ay yimaadaan kadib waqtigii loogu talagalay fiisahooda inuu ka dhacayay oo ilaabtaan ayaa loo baahnaa laakiin dadkaasi waa ay sii joogayaan Mareykanka ayayna iska dhiibayaan qaarkood green card inay helaan ayaa laga yaabaa marka hadda waxay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda oo kaashanaysa wasaaradda amniga gudaha dadkaasi waxaan bilaabeynaa in fiisayaashaasi aan kala laabano maxaa yeelay ma aysan ahayn in dadkaasi ay wadanka ay iska dhiibaan dadka ama wadanka iska dhiibay ama hadda ku guda jira in ay Mareykanka ay magangalyo ay ka codsadaan iyagana sidoo kale dib u eegis ayaa lagu sameynaya waxa sidoo kale hadda kadib dawladdu ay sheegtay fiisayaashaasi laga soo bilaabo ilaa iyo sanadkii 2016 labadaasi fiisa ee B1 iyo B2 qofkii Mareykanka ku yimid oo Mareykanka iska dhiibay ilaa iyo sanadkii 2016 waa muddo 10 sano ah gudahood dadkii ku yimid ayaa dib u eegis lagu sameynaya dadka kiisaskooda magangalyadoonka oo pending yahay oo wali go'aan aan laga gaarin si degdeg ah looma masaafurin doono laakiin kiisaskooda ayaa dib loo eegi doona waxa sidoo kale jirta dadka hadda kadib labadaasi fiisa ee B1 iyo B2 ga soo codsanaya in la weydiinayo su'aasha ah ma waxa ay doonayaan inay Mareykanka iska dhiibaan iyo qorshahooda ah xilliga wadanka ay dib ugu soo laabanayaan ayaa la weydiinaya hadda kadib qofku interviewga labadaasi fiisa ee B1 iyo B2 ga marka uu marayo waxa la weydiinaya ma waxa doonaysaa inaad Mareykanka iska dhiibto mise waxa doonaysaa inaad soo laabato oo wadankaada dib ugu soo laabato waqtigeesa soo laabanaysa su'aalahaasi ayaa hadda la weydiinaya dadka la siinayo dhinaca kale ICE waxaan ognahay howlgaladii warbaahinadu ay daba socdeen oo ciidamo fara badan magaalooyinka la geynayay sidii Minneapolis iyo St. Paul ka dhacday oo kale in hadda qorshahoodii ay bedeleen oo weeraro target oo bartilmaameed ah ay ka sameynayaan gobolada Mareykanka hadda waliba xilligii jaamacadaha dib loogu soo laabanayay oo furmanaya jooga hadda Chicago waxa arkay jaamacadaha qaarkood ICE ayaa banaankooda lagu arkay marka hadda laga soo bilaabo 1 bishan ilaa 14 bisha ayaa howlgal ay ugu magac dareen Operation Safe Community Washington DC waxay ka sameynayeen labada gobol
ee dariska laha caasimadda DC ee Maryland iyo weliba Virginia waxaana ay ku soo qabteen howlgalladaasi labada toddobaad 1328 qof oo sharci la'aan ah qaarkood waxay sheegeen dadkaasi kooxaha gaangiska ah ee MS13 Trent de Aragao iyo weliba 18 Street Gang inay ka tirsanayeen dadkaasi 9 kamid ah waxa ay ku eedeysnaayeen dambiye kala duwan oo ay kamid yihiin dambiye weliba halisa oo dil kufsi afduub iyo qofku isagoo cabsan inuu gaari waday oo qof ku dhufto ka cararay dambiye noocaas inay ku eedeysnaayeen waxaana wasaaradda amniga gudaha ay sheegtay dadkaasi 1328 qof in ka badan 400 oo qof in ay ahaayeen kuwa ama dambiye lagu soo oogay oo ama dambiye lagu helay ayay ahaayeen ay yiraahdeen dadkaasi aan soo qabanay sawiradooda qaarkood waa kuwan idin muuqanaya wasiirka amniga gudaha Mark Wayne Mullen ayaa waxa uu sheegay in magaalooyinka sanctuary cities-ka ee dimuqraadiyiinta kuwaas oo aan immigration-ka aan la shaqeynin ay dadka soo galootiga ah ee sharci la'aanta ay ka hormarinayaan badqabka muwaadiniinta Mareykanka laakiin wuxuu yiri maamulka madaxweyne Trump mar kastaba muwaadiniinta Mareykanka ayuu kaalinta koobaad gelinaya isla markaana waxa uu soo xiraya wadankan uu ka saaraya dadka sharci la'aanta ah kuwaasi oo doonaya wadanka in ay amnigiisa ay qatar ku keenaan waxaana uu sheegay mar kastaba bulshada amnigeeda in ay ka hormarinayaan wax kasta isagoo intaasi ku daray in ay doonayaan in ay ammaan ka dhigaan guud ahaanba wadanka Mareykanka marka howlgalladaasina wali waa ay socdaan hadda labadaasi gobol 1300 dadka badan oo intooda badan dambiilayaal ah ayaa dawladdu ay gacanta ay ku soo dhigtay ugu dambeyntii maalmahan dadku waxay soo weydiinayeen group 5 miyaa dib loo furay waxa laga yaabaa inaad aragteen muuqaalo anigooyga ah dad waxaa jira muuqaaladii 2 sano ama 3 sano ka hor xilladii 2023 iyo 2024 oo arrimaha group 5 aan ka hadli jirnay inta ay la soo dagaan ka dhigaya wax cusub oo barahooda bulshada soo gashanaya marka dadku waa inay eegaan halka ay ka daawanayaan ma aniga barahiga bulshada sida YouTube iyo Facebook iyo TikTok magacayga ayaa ku qoran marka halka aad ka daawanayso iska hube ma jirto wax group 5 oo dib loo furay maamulka madaxweyne Trump hadda ku dhawaad 2 sano uu joogana tirada dadka qaxootiga ah oo wadankan yimid aad ayay u yar yihiin hadda waxaan ka arkayay bogga UNHCR oo TikTok in Minneapolis hadda 2 maalmood oo la soo dhaafay aan filayo in qoysas Ethiopia in laga keenay aan u malaynayo ay yimaadeen oo airportka magaalada St Paul iyo Minneapolis lagu soo dhaweynayo sida hadda muuqaalkan aad ka aragtaan aad daawanaysaan dadkiin eheladoodii ayaa soo dhaweynaya muddo sanadaha ayayna kala maqnaayeen sida ay isugu faraxsan yihiin UNHCR-na waxay leedahay arintan oo kale ayay tahay sababta aan shaqadan aan u qabano maxaa yeelay inaan aragno qoysas muddo kala maqnaa oo dib u midoobaya marka dawladda iyada ayaa case by case u dooranaysa dadka qaxooti ahaan Mareykanka ay ku keenayso laakiin group 5 sidii loo xiray wali dib looma furin qaxootiga dadkana dawladda ayaa go'aan ka gaarayso qofka ay keenayso gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda amniga gudaha marka waa ay jiraan dad qaxooti ahaan ku imaanaya laakiin waa aad ayay u yaryihiin waana dad dawladdu ay case by case ay u soo dooratay iyadu laakiin dadka waxaan kula talinayaa muuqaaladeeda dad ayaa la soo degay sida idin sheegay marka halka aad ka daawanayso muuqaalkaasi iska hubi maalmahan commentiyada aad ayaa la igu wareerinaya oo la dhahayo cilmiga group 5 maxaa ka cusub dib miyaa loo furay marka waxa laga yaabaa muuqaalo kuwiga oo sanado hore oo dad ay wax cusub ka dhigayaan in ay soo geliyeen iyaga meelaha ayuu barahooda bulshada oo ay leeyihiin arintaasina waa arin fiican bal muuqaalkan kooban oo dadkaasi qaxootiga marka dadkooda ay ku soo dhaweynayeen airportka magaalada St Paul wax yar ee la daawada How you feeling, man? Welcome to America. Yeah, this is my brother from another mother. I'm excited. Hey, it's been like almost 10 years, so it's my first time seeing them. So it's like, oh my God, I can't imagine how happy and excited I am to see them today. Yeah, it's a day that we were all waiting for it, and then it comes. So it's a blessing. Yeah, I think this is really the reason we do the work that we do is we want to make a space that's welcoming for families. We want to see families together. So this is the most joyful part of our job is seeing people be back together again. Yeah, welcome to America. Yeah, that's sweet. Back home, it's like, oh my God, there's a lot of things going on. And then once we get here, it's like you got the chance to change your life because there's a lot of opportunity for the teenagers, for the kids, for mom, dad, and everybody
So it's like a day that we were all waiting for it. And for sure, I will say once they grow up, I know they will be somewhere than today. And then they will look back in the future and be like, oh, it's a blessing to be here. aad iyo aad u mahadsantahay asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waro idin la sidaayo nabadgelyo